kusoo dhawow channelka Zaki Ismail taaba subscribe haddii aad nagu cusubtahay gambaleelkana click si aad u daawatid kolba muuqaalka cusub aan soo bandhigno. Jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi ayaa ka codsaday waddanka Jarmalka inuu soo dhiibaan isla markaana ay gacanta u soo galiyaan in lagu magacaabo Shiine Culay isla markaana ah nin YouTuber ah. Ha ahaado maxay xukuumadda Soomaaliya ayaa ku eedeynaysa inuu caayay madaxweynaha Soomaaliya Muuse Biixi kuna tilmaamay ay aad foolxun. Shalay ayay ahayd markii uu Shiine Culay iska dhigay mid u garnaqaya madaxweyne Biixi iyo Faysal Waraabe oo khilaaf ka dhaxeeyay hawgar raqmaba xumay waxa uu nacdalay waalidiinta dhaleen madaxweynaha Soomaaliya Muuse Biixi waxa kale uu bahdilay gudoomiye Faysal Waraabe haddaba iyadoo taasi dhacday xukuumadda Soomaaliland ayaa aad iyo aad uga xumaatay arrinkaasi 14 saacadood kadib ayuu ninkii Shiine Culay soo duubay barnaamij kale kaas oo kaga hadlayo wiil lagu qisaastay gudaha Soomaaliland kaasoo ka soo jeeday beesha daarood kuna eedeeyay Muuse Biixi mid ka gubanay magaca daarood isla markaana ah wiilka lagu haystay sharci darro laguna dilay sharci darro waa sidoo hadalka u dhigay Soomaaliland ku tilmaamay aan sharci ka jirin oo ah meel Muuse Biixi iska leeyay markii intaas dhacday xukuumadda Soomaaliland ayaa codsatay in ninka gacanta loo soo galiyo imikana waxa ay tusi doonaa fiidiyoogii dambe oo Shiine Culay kaga hadlay wiilka lagu dilay naga xasuusina channelka subscribe noo saartaan sidoo kale gambaraalka furtaan si aad u heshaan xogta iyo barnaamijyada xaggani aan soo galino دايريال كاهن بديدي مدحوين هوري سوماليا إنه نكا صحيحه إلا دلو سيران يا ديدي إنه دلو إلا صحيحه موسى كبير دي سو قيل ليا ورمدل ورجع داي ورتير كاي جيننا حبض موسى بيحكم صحيحه إلى لي دلو لو جايو قريو حد نقط ما أنت أنا وحليه هاي لو جايو دارود لانجاب نقط واحد بدن بالاندير أنا هي بير بالعرب أنا كلام هاي كويه maanta dhan waa ooyay ilaahay abuurtay baa ku dhaartay waxay yahay maalin murugo wax kale kama ooyeen deedaasaan jira dhafoorkaas aan leeyahay sida la socotaan Soomaaliland waxay xukun dil ku fulisay dhowr qof Allah ha u naxariisto dhamaantood dhowrka qof waxa kamid ahaa Farxaan Maxamed Xasan Yare oo muddo 10 sano ah ku xirnaa Soomaaliland sawirkiisa halkaas ku arkaysaan waa horaan xukun caadil مهلين أنا قال كشيء مهلين كينو جعلان هاي كينو نعلها Soomaaliland بحكومتي Soomaaliland بحكومتي محكمة ده هي رأس حكومي محكمة Soomaaliland ولا سعتان بقول كيف بقول لسه ما هلا يكره وحوي ولا سعتان ماشي عدالة هذا كجرتو يمشي كجوجان ولا سعتان بيشي وفرحان كده وصحوي Soomaaliland وحلول دي بكره يوح ما مصبح يبقى عدالة laga suuya Muuse Biixi cadaalad laga suuya in gobeedkaas cadaalad laga suuya Muuse Biixi maanta wuxuu ka xishoon waayay waxay ka xishoodeen daayirayaal kaahin baa diiday madaxweynaha hore Soomaaliya inuu ninka saxiixo in la dilo Siiraan yaa diiday inuu dilo in la saxiixo Muuse ku dhiiraday riyaale kiisku arkayay si umrugsan yahay Siiraan kiisku arkayay si umrugsan yahay ilaa qofka marka maxkamadu ay soo xukumaan عدة وجود ميسا أو صحيح أو قف كان ديلك كل حكمتا محن كره هلا ديلو صحيح وامد حوينه سينايو وصحيح واي ريال وصحيح واي موسم حك حشونية موسم حك حشونية وانيكا تدبات كيسو كل فيس على ورابه هو يلا وحق شنو يلا وعاقد الدعي ما نيكا ساعة عدالة ما تعديك سويسا نيكا موسى مية عدالة عديك سويسا وما مركا أرنتاس وحفل الحماة بعد عدي نيكا سعاد بأرنت سنوات هابتي الله هو نحرسته وحاعيل مقبين هدي أوسن جيلكا كسو ترابين جيلكا سو كسو قيلي ورهلاي كعبير يا دارودي وهالكا كير مدحي دارود ومن مدو حسين هل مدو أوسو جواب ولا واي لكن Muuse Biixi أو جبهة أو السينما أو سياسة دي سواء كل سنتها غيبي وحكم سياسة دي سواء كل سنتها إن ما تعدال لقدور ولا يلا سجع نذكر عدالة سورية أو محاكل أسيد جس وصحيح مانتا محاكل هذا هل الدكتور صحيحه وحال الشيء أو يوصل شيء سيوجد إلهي وقرنية موسى إنه يري هدو يلكاس أوران لها يا Muuse Biixi ومدحوينه يعافي ما أنت ما توقتين لكن يا دارود هدو يري سيدني ساسا لإيشك مركا موسى أو أقرنيسان عدالة مش كجوجو موسى أقرنيسان إنه ولبع إني كتبيه لكن قال حوك وايستو أنت كارتين وربع إنه حوك قبصة كذي ما ورتنقله ولا عليه هنا عيد والبقص على واحد هاي ما أنت إن كاس عدالة لجسوا ما هاي هدي ويل كان التوجنا يوف
haddii wax lagu cadaynayo haddii wax loo haysto golo siciid harti leedahay in hawsha lagu dhameeyo baahay gudnimadu wax la qaadan kara ma wax la qaadan kara ma Muuse Biixi naftu ku haya maxay tahay Muuse Biixi maxay tahay naftu ku haya Soomaaliland naftu ku haya maxay tahay shalay qayaad iyo bahar saxaabada isugu dhiibay isku leeynaysa oo madax isugu gelinaysa oo la og yahay oo ay colaadada ka shaqeynaysa reer inuu maxaa ku raadayay maxaa ku isu qabsado qaybi oo xukum beelka ku jooga shalay aan Saciidi iyo reer garaad bahama jirta xabad isugu soo dhiibaysay oo dadku ka wada warhaya tiknikada isugu dhiibaysay si loo isugu baabao haye oo aysan noqon marka arintaasi arin laga naxo oo laga xumaado wiilkaasna baadil baa lagu xukumay Muuse Biixi 10 sano xirnaa maanta waa loo kacay wiilka magtii uu yiri ha layga bixiyo calaashan si aanu halka uga baxo baa loo jiray ba maxaa ku raadayay baadidoonkeeda lagu jiray gabdho baa kacay oo magaca daarood ku kacay oo gabar mareexaan hogaaminayso oo $20,000 hadda ururiyay Muuse lacagtayaan la bixin buu ka gaarsiiyay oo maxaa ku raadayay saxiixay wiilka tiirka la geeyay shalay buu hadlay shalay 2 bil kama soo wareegin markuu hadlayay markuu qaylinayay oo tola ayay lahaa 2 bil kama soo wareegin muxuu la degdegay muxuu shalay u dili waayay Muuse Biixi inta la isweydiiyay shalay muxuu u dili waayay maanta u dili wuxuu ka dhimanayaa magaca daarood baa furfurtay buu ka dhimanaya intaas uu ka dhimanaya Soomaaliland xabsiyadeedu waa wada buuxaan dad dilkooda xukuman baa ku jira hal qof la toogtaa kuma jiro maxaa loo toogan waayay Soomaaliland 10 sano hal qof ama 2 qof bay toogataa maxay u toogan waayeen waxay u toogan waayeen beesha caalamka European Unionka deeqda siiyaan ogolay inay dad laayaan maalintii wax laayaana deeqda laga jirtaa oo maxaa ku kor lagu haystaa ilaa ay soo calaacalaan warqado soo qoraan oo dhahan dibna ma u toogan mayno haye marka Muuse jeel walba qof wax dilaa ku jiray mu toogto ma tooganayo boorusku qarash weeyo wixiis ninka aniga waxa iga daran Muuse garanayo oo jabhada oo aad garanaysaan oo ula booca sidoo ku gumaysan lahaa oo ku tubaya oo halka Soomaaliya uga baxay inuu adiga kula go'o ku goosto oo madaxa ka garaaco qofka cadaalad maanta ka sugay kan cadaalad weydiistay kan maanta ku faraxsan Muuse cid dilay ku faraxsan warkanu dilay muxuu yuu yahay kanu dilay macadooba Soomaaliya kama taasa ay ugu daran aniga